sheekadii Waasuge iyo Warsame sodcaalkii soddonka maalmood ee uu qoray Xuseen Sheekh Axmed Kadare bilowgii 1970 xuseen allaha u naxariiste wuxuu ka mid ahaa agaasimayaashii akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta wuxuu kaloo mar walba xubin ka ahaan jiray dhammaan guddiyadii qorista af Soomaaliga loo magacaabay laga soo bilaabo 1961 ilaa 1990 Waasuge Waranside waa nin caan ah kuna nool degmada Jowhar waa 60 jir itaal u dhashay waxaa itaalka u dheer waa dadka ayan da'du ka muuqan waa culimo la jir aftahana wuxuuna ku soo barbaaray lo iyo beer kuwaasoo ay nolosha qoyskiisuba ku tiirsan tahay wuxuu degan yahay beelgelin socod u jirta magaalada Jowhar gobolka Shabeellaha Dhexe ee uu ku nool yahayna aad ayaa looga yaqaan loogana tixgeliyaa Waasuge wuxuu goostay inuu sadcaal gaaban xamar ku gaaro si uu u soo fushado umuuro yaryar oo la xiriira baahida qoyskiisa waa barqal la kala agaasimay ilmihii iyo xoolihii waayeelka reeruhu wuxuu isu diyaarinayaa hawl maalmeedkii beeraha Waasuge maanta ayuu baxayaa wuxuu la dardaarmayaa oo uridka la taagan yahay afadiisii muslimo halka uu hooskiisa subax ku dhammaado waxaa ku cayaaraya da'goyskii muslimo oo 5 jir ah wiilka dhinaciisa bidixeed waxaa ku xiran weylo ay lo'i ka sooftay geertooda isdabajooga ahna ay iska maqli la'yihiin Waasuge iyo afadiisu muslimo waxay taagan tahay qaarka gudihiisa iyadoo cuskan yaanbo ay beerta u soo qaadatay waxay si xiisale u dhagaysanaysaa Waasuge oo kala ballamaya reerka iyaduna waxay markeeda duqa ku adkaynaysaa fariimo u gaara baahideeda mar hadduu magaalo tagayo duqii iyo afadiisii oo weli dardaarmaya ayaa waxaa u yimid rag Jowhar ku socda oo ay Waasuge ku ballansanaayeen inay isla jilmaraan halkaas ayayna iska raaceen waxay socdaan kustaraaran keliyana ka tallaabaanba goor duhur dabayaaqadiisa ayay tageen magaalada Jowhar kadib markuu odayaashii la shaacabay Waasuge wuxuu si toosa u aaday suuqa baabuurta wuxuuse ku beegmay baabuurtii xamar oo goor hore baxday nasiib wanaag in doora markuu taagnaa waxaa gaalkacyo ka yimid baabuur xamar u socda dhowr qof ayaa halkaa uga degay si sahlan ayuuna Waasuge kursi uga helay isla baabuurkaas uu Waasuge soo raacay waxaa la socday nin isna caana oo la yiraahdo Warsame Hawl kana mid ah xoolo dhaqatada gobolka Mudug Warsame wuxuu asaguna u soo danaystay isla magaalada xamar Waasuge iyo Warsame maqaadiir eebbe ayaa ku kulmisay baabuur gudihii waa laba oday oo kala daran xagga aqoonta dhaqanka dadkooda iyo waayo aragnimada kale intaba wuxuu mid waliba rumaysan yahay inuusan koonkaba ku noolayn ruux uga aqoon badan suugaanta Soomaalida wax kalaba yeelkoodi dadka kale oo baabuurka saaran waxay u badan yihiin rag dacdhaxaada guud ahaan waxay isugu dhafan yihiin rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel dhowr kursi ayaa ka bannaan baabuurka waxaase la malaynayaa in jidka dad laga sii helayo reer magaalka baabuurka la socda waxaa ka mid ah wiil 20 jir ah muuqaalkiisuna ka duwan yahay inta kale wuxuu labisan yahay surwaal iyo shaar turmadooda looga dayday habka cusub ee dhalinyarada reer galbeedka waxaana ku yaal timo aan weli maqaska la barin waxaa magaciisa la yiraahdaa dhaanraac waana inan meel sare ka gaaray ku dayashada xaragada reer galbeedka waqtigu waa isgurayaa goor casar soo dalala galay ayuu baabuurku ka soo dhaqaaqay magaalada Jowhar waa maalin ay hawadu aad u wanaagsan tahay shufeerka baabuurka wadaahu waa nin waayeel ah waxaa caado u ah in mar kasta oo baabuurku dhaqaaqayo uu dadka saaran ku yiraahdo faatixada akhriya dadka oo odayaal u badnaa daraaddeed maalintaas waxaa faatixada la akhristay intuusan shufeerku hadlin faatixadaas wadajirka loo akhristay dhaanraac kama uusan qayb gelin wuxuu ku hawlanaa oo ku shallaysanayay muraayadda baabuurka in yar kadib markii samada Jowhar laga baxay ayaa la galay beero aad u baxaad wanaagsan oo jidka labada dhinac kala xidhiidha waxaa lagu jiraa sanad barwaaqo ah oo bar iyo beerba ay mahadiyeen galley
sisin iyo khayraad kale ayaa beeraha ka dhisaaran. dadkii baabuurka saaraa badiidood dariishadaha ayay madaxa ka wada riteen ayagoo il iyo laab kulansan beeraha ku daawanaya. waa suge oo fasalkaas beertiisu xumayd ayaa kuwaan aad ugu dhaygagay. wuxuuna intuu isha la raacayay gallayda iyo masagada qalbiga uga heesayey: beer nimaan falin bawd u dhigin weyn bahal celin kara, biyo ugu di'in dow barwaaqa ah, badar uga bixin bakaar lagu shubo, baahi weligii waa u bilan yahay. markii beerihii laga baxay oo cabbaar la socday ayuu shufeerkii qaboojiyey socodkii baabuurka, si isdaba joog ahna hoonka u yeeshay. taasina dadkii oo dhan ayay dhiilo ku abuurtay. qof waliba wuxuu is yidhi bal hubso waxa baabuurka hakiyey. waxay arkeen jidkii oo lo iyo geel fara badanu ku gudban yihiin. waxaa la soo galay meel bulsho xoola dhaqato ahi naq ka degtay. dhulku waa doog iyo biyo dhex yaal. midabada indhuhu jecel yihiin oo dhan waxay ku kulansan yihiin dhirta kala jaadka ah oo ilaahay dalsankaa ku beeray. laama cargeeyey oo caleemu ku gaafan tahay, ubaxna guudka ku sita ayuu geed waliba la tiicaya. ragga iyo dumarka xoolaha la jooga oo caafimaad iyo farxad buuxda ka muuqdaan waxay isku maaweelinayaan legdan iyo cayaaro hidde. qaarkoodna meelo kala fog ayay koox koox ugu sheekaysanayaan. warsamo ayaa markuu arkay geelii oo isugu jira irmaan iyo horweyn, aaran iyo galoof iscelin waaye. markaasuu ku dhuftay kuna luuqeeyey heestii geela ay ahayd: geel nimaan dhaqan, goodir xalay dhalay gaawuhu u culan gaarka kala gelin, naase godol qaba gaagaxna u helin, gurdankood maqal gadoon kala dhihin, gaatan ula socon, geed qabow tegin, waa gob yaa yidhi. markuu warsame heestii dhammeeyey ayaa dadkii baabuurka saaraa badidood ka codsadeen inuu ugu soo celiyo. warsamo way la xumaatay inuu isla heestii ku soo celiyo mar labaad, maxaa yeelay waa nin korka ka haya suugaan fara badan. isla markiiba wuxuu dadkii u dooray baydad ka mid ah gabaygii cumar isteeliye ee ahaa: meeshii awow iyo awow, xaawo iyo aadan, arligeenna xoolahani way ku isiraayeene adduunsa lama sinna, ee geel horaa laysu aaminaye waa waxay abaartu u dhaqdeen odayadeeniiye haddii oofaweynow ratiga ayra lagu qooqsho amin khayrka galabtii, hadduu aaran soo diriyo usha koliya 2 jeer, haddaad yaro ogeysiiso umalkii uu qabay doob hadduu awda kaga siiyo indhalaliska, miciduu sidii aar u rabinayo kolna waxaan adduunkala lahayn. aabi socodkaas weyn ayuu dadkii gabaygaas ugu riyaaqay. qaarkoodna waxayba wadajir ugu luuqeeyeen beydka ugu dambeeya ee ah: kolna waxaan adduunkala lahayn aabi socodkaas. labada mid waliba wixii uu yaqiin buu ammaan ku bantoofay, ammaan ay rakaabkiina u wada riyaaqeen. intii uu warsame gabaygaa tirinayey, dadkuna sida xiisaha leh ugu jiibinayey, waxaa carab bastiis la ahaa oo furuurta ruugayey wiilkii dhaarraac ahaa. wuxuu diidan yahay sheekada aan isaga macnaha u lahayn oo odayaasha aan wakhtiga la soconin la neefneefsanayaan. si uu isaga aamusiyo, wuxuu dhaanraac u shitay makiinadda suxuunta muusiga wareejisa. wuxuu saaray saxan ay ku duuban yihiin heesihii James Brown. farxaddii odayaasha waxaa beddelay foolkaduud. markaas bay indha caraysan dhaanraac ku wada fiiriyeen. isaguna waxaas oo dhan danka ma leh. wuxuu ku cayaarayaa fadhigiisa oo hadba gees isu tuuraya, jilbahana isku tumaya. marmar heesaaga ayuuba kula luuqaynayaa baydadka iyo howlisyada qaarkood sida jirabba jirab jirabba jirab. markii cabbaar la aamusnaa wiilkiina uu xiisa dhacay ayaa mar kale sheekadii la soo nooleeyey. ugu horrayntii waa suge ayaa isagoo aad uga caraysan waxyaalihii uu dhaanraac ku kacay wuxuu tusaale ahaan dadkii ugu tirshay masafadii sheekh axmed gebyow ee ahayd: qasqas carmaa iyo qaabis caanood, midba markoo la qasmaansahaye, quudka haddii la karshow qabow yahay, inta qurmaa mar la soo qubaaye, geeyo qurxoon iyo qayl dameeraad, ninba midkiisu la qaal badnaaye, rati qawaari iyo qaalin juuclaah,
midba markoo qalab saarahaynaa askarisow iyo naagta qaafaah maharka loo wada qaybihaaye qaran haddii marbaqoon u soo kaco wixii qadiima la quursahaaye qur-aanka toosane qaadirkay yidhi qolof qab gaaluhu qoonsahaaye rag badan ayaa masafadaa ka faalooday waa sugana ku gacan qaaday iyagoo isla markaana dhaanraac isha ku godaya waa suga markuu ogaaday in tusaalihiisii lala dhacay ayuu si wanaagsan inta fadhiga ugu qaab samaystay oo maradiisii taraska lahayd deegaha ka ritay sidii libaax hareerihiisa marba dhan u jeestay markay intaasu dhacday ayaa warsame oo ay la noqotay in laga dheereeyey mar keliya sidii webiga u biyo keena wuxuu ka qayrooday sidii waasuga loogu madax ruxay warsame isagoo guud ahaan uga hadlaya xaalkii dhaanraac gaar ahaanna dantiisu tahay inuu libta abwaannimo waasuga ka xigsado ayuu dadkii u tirsay gabaygii cilmi raaga ee ahaa toogaysi buu galay furqaanta hajudkeedii towreed iyo injiil baa islaam taabacood yahay xaqiiyo tamaam ah xafiis loo tallaabsaday meeshuu tembigu ooli jiray buugag baa tubane waxay culima tawfiiq ku tahay turuba naareed ee tawxiidka waxaa looga tegey liina tacabkeeda sida toorka iyo kaasha baa laysu tiinbadaye la tallaalayey see kufriga loogu tiirsado dadka oo gabaygaa ka faalloonaya murtidiisana wadajir u dhuuxaya ayaa dagaalama filaanhi dhex maray wiilkii dhaanraac ahaa iyo haweenay duq ah oo baabuurka meel dhexe ka soo raacday fadhiidayna kursiga kiisa xiga dagaalku wuxuu ka dhacay dhaanraac oo xabad sigaara shitay duqdiina ku tiri war ha igu afuufin qurunka afkaaga ka socda dhaanraac isagoo intii tabartiisa dadaalaya ayuu aftalyaani ku yidhi iskuusi raalli ahow duqdii waxay u qaadatay inuu caynayo markaas bay inta la baxday dambiishii ay alaabta ku sidatay madaxa kala dhacday oo u celisay ilaa gacmaha la qabtay haddaba muxuu falay dhaanraac inta istaagay oo gacmaha shaarka laabtay feerna la baxay ayuu yidhi duqda iskeen dadkii baabuurka saaraa oo yaab la wada qoslaya ayaa wiilkii ka badbaadshay duqdii ayaydiis lafaca ahayd inkastoo uu murankoodii dheeraaday ilaa uu dadkii wada saameeyo oday raggii ka mid ahaa ayaa markii dambe sheekadii soo nooleeyey si uu muranku u joogsado wuxuu duqu dadkii u bilaabay isagoo ku luuqaynaya labadii bayd ee u dambeeyey gabaygii cilmi raage oo uu hore dadka ugu mariyey warsame waa baydadkii ahaa sida toorka iyo kaasha baa laysu tiinbadaye la tallaalayey see kufriga loogu tiirsaday ninkii odayga ahaa markuu dadkii muranku saameeyey maskaxdooda mar kale ku baraarujiyey murtidii xiisaha lahayd isagoo isticmaalay xeel waayeel ayuu intaa kuma dhaafine isla markiiba waasuga ka codsaday inuu isaguna markiisa murti kale u raaciyo gabaygii warsame tirsay waasuga inta dadkii isha la raacay wasiyadoodana ka gartay in hadalka xiise loo qabo ayuu u marshay shirib ka kooban 4 bayd oo min 2 lugood ah wuxuu yidhi dhulku dadkoo dhan wow dhammays dhiishaasa ninba meel dhigtaa dhaxalka hidda waa dhigaal wax noo dhimanna waa dhacaan dhicis lagama dhul sugoo wixii isku dhiiga way isdhalaan dhaanraac dhaqanka waalidkood dhasha ka leexataan dhahna waa suge oo damacsan inuu shiribkiisa guulow la raaciyo iyo warsame oo sugayla niyaddana iskale yaa mar keliya hadalka ku siiya ayaa magaalada xamar la soo galay laba xidigle dirir iyo oday warsame oo walaalkiisa isaga dartiisina mudug uga soo sodcaalay goor subaxa waa kuwii iska helay dabadeedna iska soo raacay dugsiga tababarka xalaane oo sarkaalku uu ka howlgalo waxay socodee sheeka hayaanba waxay yimaadeen aqalkii dirir oo ku yaal xaafadda howlwadaag dirir wuxuu qabaa haweenay aada u wanaagsan magaceedana deeqa la yidhaahdo deeqi waa afar reerkeeda ka adag oo raggeeda u garab ah wuxuu dadku u aqoonsan yahay inaan lagu gaarin edab iyo aqoon wanaag inta hoos u sii taqaanayse waxay ku dhaliilaan inay si xad dhaaf ah ilmaha u disho marka ay canaananayso warsame
markuu 2 maalmood nastay ayuu subaxdii dambe wuxuu aaday nin kale oo ay walaala yihiin laga soo wanaagsan yahay dadkuna ay ku tilmaamaan inuusan xilkas ahayn intii uu sii socday duqu wuxuu niyadda uga tallamayay tolow maxaad maanta kala kulmi doontaa ninkii asaga ahaa laakiin khayrsaadsigiisa ayaa badnaayo wuxuu duqu maalintaa walaalkii ka sugayey deeqsinimo aan hore loogu aqoon maxaa yeelay muddo dheer ayay ismoogaayeen warsame wuxuu intaa niyadda uga sii luuqaynayay baydadkii ugu dambeeyey gabaygii uu sayid maxamed u tirshay markuu u yimid in cabdi garaad yuusuf oo aabbihiis uu horay abaal ugu galay kuwaasoo ahaa alaakoosha oo wiilku yuu agab la-aan sheegan afka wuxuu ka doono iyo wuxuu uur ka raba siiya ninkii loo axsaan farahayaba iniq u dheereeya galabtii dambe markuu duqii soo laabtay ayuu dirir wuxuu weydiiyey wuxuu kala kulmay ninkii walaalkood ahaa warsame wuxuu gox horta ka furfurtay ku toranayaa aqalka bannaankiisa dirirna agtiisa ayuu kabihii askarta ku casaysanayaa markaas buu warsame su-aashii walaalkii kaga jawaabay gabaygii xaaji aadan afqallooc ee ahaa ninkii uurka kaa neceb wejiga waad ka aragtaaye agmarkiyo daymadaba waa lagu ogaadaaye inkastuu akhwaan kula yahay ood uur la tahay hooyo axmaqu waa cadowgaa hadduu aabbahaa dhalo dirir si wanaagsan ayuu u gartay inuusan warsame xoolo iyo xusmad midna ninkii isaga ahaa ka soo helin umuurtaana lama yaabin maxaa yeelay hore ayuu u malaynayay intaa kadib waxay galeen sheeko kale dirir ayaana wuxuu walaalkii warsame u sheegay inuu damacsan yahay in qur-aan loo akriyo maxaa yeelay dhowaan ayuu ku guulaystay tartan uu xiddi ku qaatay markaasay isla meel dhigeen nidaamkii iyo wakhtigii qur-aan akhriska waxayna ku ballameen inay berri subax u jarmaadaan suuqa xoolaha kana soo iibsadaan 2 neef oo ariya subaxdii markay suuqa aadi lahaayeen ayuu dirir hurdadii ku raagay warsame ayaa markaa u yeelay gabadh yar oo dirir dhalay kuna yidhi orodoo aabba soo toosi haddaba maxay fashay gabadhii yaray inta garbaha kor u nuuxisay ayay adeerkeed ku tidhi ha noo sheegin waa weer warsame u cusub oo carruurtu magaalooyinka ka hirgelisay waxaa hadalkaa maqashay gabadha yar hooyadeed deeqa oo inta soo oroday si xun u dharbaaxday markaasaa dirirna ku soo toosay oohinteedii markii xaajadii lala socodsiiyey ayuu dirirna markiisa gabadhii ul u soo qaatay oo laga celceliyey warsame aad ayuu uga xumaaday gabadha yar ee uu waalidka u yahay dartiina sida xun loogu canaantay cabbaar ayaa la kala aamusnaa kadibna deeqa ayaa raggii quraacdii u keentay quraacdii kadibna waxay isu raaceen suuqa deeqana waxaa lagala dardaarmay hawlihii kale maalmihii uu warsame xamar joogay waxaa u kordhay aqoon magaalo wuxuu tegey meelo badan wuxuuna arkay waxyaalo kala duwan laakiinse wuxuu mar walba tabsanaa duqii waa suga ahaa oo ayan is arag maalintii ay magaalada soo galeen kadib warsame wuxuu maalintaas u damac dheeraa inuu suuqa xoolaha ku arki doono ama war uu ka heli doono waa sugay markuu magaalada yimi wuxuu ku degay guri uu leeyahay wiiluu dhalay waxaa la yidhaahdaa muuse wuxuuna qabaa haweenay caddaana oo iyadana la yidhaahdo maria muuse wuxuu waxbarasho dibadda ugu maqnaa muddo sanooyin ah isagoo yar ayuuna dalka ka tegey intaa uu dibadda joogay duruusta waxbarashada ka sokow wuxuu si weyn u dhuuxay nolosha reer galbeedka oo qofnimadiisa saamaysay muuse wuxuu tale ku gaaray inuu halka ay markaa marayaan kala qabsado sidaa daraaddeedna xaashadiisu kuma koobnayn jacayl iyo guur ee wuxuu isku qaatay gabadha iyo dhaqankeeda sidaas ayuuna uga duwanaa ragga kale ee gabdhaha shisheeyaha soo guursaday muuse wuxuu isku tirsaa nin la socda nolosha casriga ah wuxuuna ishalmaansiiyaa amaba uu dhaliilaa bulshada uu ka dhashay oo ku hareeraysan iyo dhaqankeeda sidiisana waa dadka sida fudud u raaca wixii niyaddooda taabta ayagoo aan ka fiirsan ciribtooda dambe muuse markuu yurub tegey ayaa carabka loogu tiray nolosha casriga ah dibna uma jilleecin dadka sugaya iyo waxa ay ku sugan yihiin isaga iyo xaaskiisaba marka aad ficilkooda iyo qowlkooda dhuuxdid waxaad dareemaysaa inay fikrad ahaan isku raacsan yihiin
raaricinta dhaqankiisa iyo raacidda midkeeda. muuse wuxuu isu keenay maariyo oo ku dhalatay kuna barbaartay dhaqan aan waafaqsanayn midka soomaalida iyo waasuge oo ah oday 60 jir ah intaana miyi ku noolaa dhiiggiisa iyo dhimirkiisuna ay dhaqanka dadkiisa la shaqeeyaan. waasuge markii miyiga loogu soo sheegay in wiilkiisii uu dibadda ka soo guursaday haweeney caddaan ah wuxuu mar walba isweydiin jiray torow gabadhu sidee u eg tahay, af soomaaliga ma taqaan mase afgaal keliya ayay ku hadashaa, maxaase idinkala qabsan doona haddaad aqalkooda tagto. isagoo sidaa u walaacsan ayuu markii horeba soo aaday reer muuse. wuxuu gurigooda ku soo beegmay muuse iyo maariya oo inta surwaalla gaagaaban qaatay qol loogu talagalay ku ciyaaraya kubadda miiska. markuu albaabka soo joogsaday oo lays wada arkay ayuu xishoo dib ula laabtay oo is yidhi balukaadi intay gabadhu dhar ka xidhanayso. muuse ayaa markaa maariya ku yidhi qofka ilinka soo joogsaday wuxuu ahaa aabbahay. isla markiina wuu u soo baxay. maariyana way ka soo daba oroday. waasuge ayaa aqalka dibaddiisa loogu wada yimid. markaasaa qof waliba markiisa labada daan ka dhunkaday. nasiib darro maariya sooma dhar bedelane waxay qabtaa surwaalkii gaabnaa. waxay galabtaasi ahayd markii waasuge ugu yaab iyo amankaag badnayd. markii gurigii la galay oo la kala saraan qaatay ayaa muuse aabbihii ku yidhi maxaa lagu keenaa oo aad cabbaysaa qabow iyo kulayl aabe. waasuge wuxuu yidhi wixii aad haysaan ii keena laakiin waa inuu bun ugu horreeya. markaasay maariya inta oroday duqi u keentay fujaan qaxwo ah. waasuge wuxuu sugayey bunsharuur laakiin markii qaxwadii loo keenay wuxuu u qaatay in lays yidhi ha ku sii sugo. maariyana waxay isleedahay mar haddaad duqii qaxwo siisay waxaa markaa kuu laaban adigoo u diyaariya casho la yaqaan. waasuge iyo wiilkiisii waxaa u socda iswaraysi. muuse ayaa looga warramayaa dhibaatooyinka miyiga oo dad iyo duunyaba haysta. salaadii maqrib ayaa la gaaray. markaasuu waasuge inta weysaystay oo waajibkiisii gutay warkii halkiisii ka bilaabay. in yar kadibna waxay maariya labadii nin ku tiri kaale ee miiska aan cashaynee. waa markii uu kashifmay is-afgarawaayi oo duqii yidhi anigoo aan bun helin ma taabanayo cunto kale. markaasay inta reer muuse isdhugteen oo duqii ka fogaadeen ka wada hadleen is-afgarawaaga meesha ka dhacay. waxaa kaloo ka sii daraa markuu waasuge ogaaday inayan maariya aqoon u lahayn sida bunsharuurka loo dubo. taasuna waxay kashifantay markii deriska laga doonay agabtii bunsharuurka iyo qof dubi yaqaan intaba. waasuge way u caddaatay inayan reer muuse ka suuro gelin suuryada uu sugaya iyo sida uu u doonayo. dhowr ayaamood kadib ayuu waasuge habeen jimcaha fiidhoraadkii wuxuu dikri ka maqlay masaajid ku dhowaa. wuxuu ka tirsan yahay dariiqada axmediyada. markaasuu inta aaday goor dambe ka soo laabtay. haddaba markuu aqalkii ku soo laabtay muxuu la kulmay? wuxuu yimid gurigii oo ay reer muuse ku casumeen saaxiibadood oo isugu jira rag iyo dumar. dhallinyarada soomaaliyeed ee dumarka caddaanka ah qaba cidi kama maqnayn. qaar kalena casumaadda way ka soo qayb galeen. waasuge wuxuu albaabka ka soo galay iyadoo muusig qabow dhacayo oo wiilashii mid waliba inta gabar isku looxshay garabkeeda ku hurdo. dhallinyarada meesha ku kulantay labiska ay qabaan wuxuu waasuga ku xusuustay wiilkii dhaanraac ahaa ee jawhar uu baabuurka kala soo raaci jiray. duqii dhallinyaradii ayuu cabbaar isha la raacay isagoo isweydiinaya torow meeshu ma tahay aqalkii muuse. markuu in badan taagnaa isagoo yaaban ayaa wiilashii midkood inta soo fiirsay ku yidhi duqa ma iska soo gelaysaa aqalka adeeg allah. markay intaasi dhacday ayaa muuse hadalkii maqlay soona orday markuu arkay qofka lala hadlayaa inuu aabbihii yahay kuna yidhi aabe maad soo geshid maxaad albaabka u taagan tahay. markaas ayaa waasuga shaki baxay inkastoo uusan garan waxa meesha ka socda. duqii gudaha ayuu soo galay. muuse ayaana dhinac socda oo uga warramaya inay dadkani yihiin saaxiibadiis. maariyana ay casuntay. intaa ay dhallinyarada ag marayaan cayaartii sideedii ayay u socotaa. waasugana laabta ayuu ka hadlayaayo wuxuu leeyahay casumaaddu waa caynkee.
culimo iyo waayeel kale midna ma joogo, ari lama qalin oo anfaco kale lama sii diyaarin, horena layguma sii sheegin. waa cajaa'ibe casuumaddanu waa cankee. duqii waxaa u caddaatay inay casuumaddu tahay caways dhalinyaro, kadib markuu arkay siday wiilasha iyo gabdhuhu isku qabqabsanayaan. markaas buu goostay inuu dhallinyarada u jeediyo waane iyo wacdi si ay cawayska isaga daayaan. isla markiiba aadaan ayuu waasuga ku dhuftay. allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar. muuse aad ayuu aabbihii ugu cadhooday, laakiin wuxuu sameeyo wuu garan waayey. cayaartii way joogsatay, dhallinyaradiina way wada aamustay markay waasuga agtiisa ku soo wada urureen. maariya dadka dhexdiisa ayay hadba dhan u ordaysaa. gabdhihii kale ee caddaanka ahaa mid waliba ninkeedii ayay su'aalo ku furfurtay iyadoo sababta weydiinaysa. markuu aadaankii dhammeeyey waasuga wuxuu dhallinyaradii u jeediyey hadal waane ah, kadibna isagoo ku luuqaynaya masafadii wacdiga ahayd ee sheekh axmed gebyow, kuna saabsanayd inuu aadanuhu ku waana qaato waxyaalaha dabiiciga ee ilaah abuuray naguna hareeraysan. wuxuu yidhi, webiga kii warwareegsanaay iyo samada waaban marna aan war soo dhihin, baxarka waalan ilaahna waabiyey, waaga baryaaye marnaan la weyhayn, kuwa wallayl iyo waduur akhraaya ayagu way iskula waana qaateen, wejigay weese la daa'imaayaan, wakhti galaa wataday dukaayaan, watad dibkiis wardiyay akhroodaan, waalidka weerar samay dhahaayaan, waaxiday weelalka naad ka tuugaan, kuwaasi waa weliyaalo eebbo, wadka dibkiis darjannay waraaba. markay intaasu dhacday ayay dhallinyaradii qaybsantayoo waxay u kala baxday qaar wacdigii iyo waanadii ay saameeyeen iyo qaar ka cadhooday, si weynna uga xumaaday cayaarta laga cadqaladeeyey. wiilasha kuwii ugu xadhiibsanaa ayaa markii dambe isku dayey inay duqa xasil wax u dhacsiiyaan, iyagoo dantoodu tahay inay habeenkaas barnaamijkooda dhammaystaan. laakiin wiil yar ayaa xaajadii kharribay oo inta si lama filaana hadalkii u qaatay duqii ku yidhi, adeer, annagu inta yar oo aan adduunyada joogno waa tumanaynaa, aakhirada aad sheegaysidna yeelkeed. waa suge aad ayuu weertaas ula fajacay ilaa hadalba ka soo bixi waayey. markuu xoogaa aamusnaa ayuu inta yaab madaxa la ruxay dhowr kal ku celceliyey hadalkii uu wiilku yidhi, aakhirana yeelkeed, aakhirana yeelkeed. hadal kale oo waana ah ayuu waasuga ku dheeraaday, wuxuuna dhallinyaradii tusaaleeyey inuusan ilaahay dadka u abuurin in qof waliba ku kaco wixii ay naftiisu jeclaato. markuu in badan waxyaalaha diintu fartay u faaninayey, waxyaalaha ay naga reebtayna u caayayey, ayuu ugu dambaystii dhallinyaradii u tiriyey masafo kale oo sheekh axmed gebyow uga faallooday waxyaalaha aakhire qabsan doona qofkii aan camal wanaagsan faran intuu adduunyada joogo. wuxuu yidhi, rugtii qayaama haddii la roogsado, sifata naar ahna raab ka soo go'o, kuwii rogaayeyna reebi waayaan, rasuulka suubanownow ku reed maro, haddaad ka raaracsatiiska kaa rido, rabbigay weynuna raalli kuu naqan, ragow haddoo qalbi waa rafaada. dhallinyaradii quus ayay markaan ka gaartay, sidaas ayayna ku kala tageen. maariya aad ayay uga xumaatay barnaamijka habeenkaa ka dhicisoobay, aqalkeeda ayayna hoosta ka xiratay cadho daraaddeed. habeenkaa reer muuse islama hadlin, sidaas ayaana waagu ugu baryey. waasuga qolkiisii ayuu iska seexday isagoo ciil baskiis la ah, asal ahaanna ka xun waxyaalaha ay dhallinyaradii ku kacday, sababna uga dhigaya cidabdarro ay reer muuse horseed u yihiin. subaxdii dambe wuxuu qof waliba soo toosay isagoo cabursanoo si dhib ah hadalku uga soo baxaayo. quraacdii kadib ayaa haddaba muuse wuxuu aabbihii ku bilaabay sheeko ku saabsan waxyaalihii xalay dhacay, waxaase u berberiyey in si aan rasmi ahayn oo iska maandhugada uu odaga ugala tashado xaajo uu maalmaha ku tallamayey.
maariyana ay la ogeyd. muuse markuu isiiri duqa caradii way ka degtay ayuu si qabow u yidhi, aabe waxaan jeclaystay inaan kula socodsiiyo kaalana tashado tala aniga iyo maariya aan goosanay kuna saabsan inaan shaqada dawladda ka tago dibaddana iska aadno. waxay ila tahay inaad adiguba garan kartid sababta nagu kallifaysa arrintaa, maxaa yeelay waxaan nahay dad nolol casri ah doonaya, horena u bartay. waxaa intaa noo dheer, mar haddaan dibadda tagno welwel kama qabno xagga shaqada, maxaa yeelay waxaan mar walba warqada ka helaa maariya aabbaheed oo ah nin warshada leh, wuxuuna nagula taliyaa inaan isaga u shaqayno. markuu intaa muuse yidhi ayuu waasuga hadalkii qaatay kuna bilaabay, maandhow aad ayaan hadalkaaga u gartay, haddaan se dhuuxay waxaan u qaatay inaad tahay nin ka fogaanaya wuxuu waalid iyo walaal lahaa. tan labaad, muusow waan ka warhayaa oo dhallinyaradii da'daada ahayd oo aad dibadda waxa ku soo wada barateen si farxad iyo kalsoonida ayay dalkooda uga shaqaystaan, waalidkood uga warhayaan, ugana ducaystaan. wuxuu waasuga soo hadal qaaday wiiluu aabbihii yaqiin, muusena ay wax isla soo barteen. muuse oo hadalkii duqa u adkaysan waayey ayaa inta si carab ku jirto uga dhexgalay ku yidhi, aabe marna ha ka baqin anigoo nool inaad dhibaato la kulantid. waxaan kaa ballan qaadayaa inaan bil walba lacag kuu soo diro. intaas uu muuse faanka qubaayo waasuga feeraha ayuu ka qoslayaa, maxaa yeelay wiilkiisa ayaa u miisaaman, wuuna ku rajo gaaban yahay. muuse oo faankii weli sugaaya ayuu waasuga hadalkii ka qaatay oo wiilkiisii u jeediyey erayo isugu jira waano iyo canaan intaba. ugu dambaystiina wuxuu hadalkiisii ku cusleeyey murtida soomaalida, wuxuuna muuse u tirsay gabaygii xaaji aadan afqalooc oo ahaa 7 tegey, mid weli soo socdaiyo saaka waxa jooga saddexdaa waqti oo xaal adduun lagu sifeeyaayo soo noqon ma jiro, shalay wixii saadufoo dhacaye waxaa saa dambaytiyo berrina waa su'aal maqane, waxay taladu kuu suuban tahay subaxad joogtaay. markuu wada hadalkii heerkaa gaaray ayuu muuse iska dhigay nin waanadii qaatay, waasugana wuu ku farxay inkastoo uu shaki weyn ka qabay. markaasuu muuse 4 faataxa u maray, uguna duceeyey inuu dalkiisa ka shaqaysto, dadkiisa la noolaado, waalidkiina ka ducaysto. sidaas ayaana wada hadalkoodii subaxaa ku dhammaaday. 5 maalmood kadib ayuu waasuga goor subaxa wuxuu aaday suuqa xoolaha, isagoo dantiisu tahay inuu ka soo fiiriyo dad baadiye ka yimid oo uu reerihii ka waraysto. maalintaas ayayna waasuge iyo warsame si lama filaana suuqaas ugu kulmeen. waa isla maalintii dirir iyo warsame ay ariga ka soo iibsanayeen. lagama sheekayn karo siduu mid waliba u farxay markay is arkeen. maalintaa waxay isku fureen murtidii ku gaaxatay intay kala maqnaayeen. dirir iyo waasuge ayuu warsame isbaray, kadibna waxay wadajir uga shaah doonteen makhaayad suuqa u dhoweyd. intii ay sii socdeen waxay isu sii sheegayeen halka uu mid waliba magaalada ka joogay muddadii ay kala maqnaayeen. labada oday waxay u hadlayeen si tanaaga ah oo farxadi ku jirto. markaasaa qofkay soo agmaraanba dib u soo dhuganayay, dadka qaarna kuba qoslay. makhaayadii ayay tageen, shaah ayaa loo keenay. warsame ayaa markaa hadlay oo yidhi, waasugow waxaad iiga warantaa gabadhii caddaanka ahayd oo wiilkaagu qabay, mase leedahay shuruudihii odayaasha soomaalidu ku qiimayn jireen gabadha la guursanayo, kuwaasoo odhan jiray qofka aad guursanaysid waa inay lahaataa 5 waxyaalood oo kale ah: itaalnimeed, aqbal naageed, arrinkeen waayeed, af muslin iyo anshax xulin. waasuge oo warsame u jawaabaya ayaa inta shaahii ka baday oo koobkii dhigay ku yidhi, wallaahi warsamow haddii aan dembi iska dhowro, gabadhu waa qof aad u qurux iyo caqli badan, sida la sheegayna cilmiga gaalada aad u taqaan. waasuge cilmiga u diinta islaamka wixii ka soo harana umaba danqado. laakiinse warsamow isagoo hadalkii sii watay ayuu yidhi, waxyaalo badani waa ka dhiman yihiin, waadna og tahayo soomaalidu waxay ku mahmahdaa dad maceeb laayahay lama yidhaahdee macayntaa baa la yidhaah. haddaba warsamow haddaan si tifaftiran kuugu warramo waxyaalaha gabadha ka maqan waxaan ka soo qaadi karaa, bal mar waayo ma tukato, mar kale waayo ma taqaan sida bunsaluurka loo dubo,
haddiise aan ka hageliyo heshiiska iyo kala dambaynta iyada iyo ninkeeda waxaanba is idhaahdaa kuwanu waa reer jannaadkii la sheegayey. sheekadii oo halkaa maraysa ayuu warsame mahmaah gaaban inta hadalkii ku tuurtay wuxuu yidhi, waa sugow, sideedaba waxaa la yidhi isqadaris oo iskuma dagaalo. waa sugo oo halkiisii hadalka ka sii watay ayaa yidhi, si kale kuma garatide marmar muuse ayaa cuntada kaliya. markaasaan ku xusuustaa mahmaahdii ahayd, rag waxaa u wanaagsan nin tolkii u nacas ah oo raganimadiisa aan ku tijaabin, shisheeyaha u nacab ah oo ay ka baqaan, reerkiisa u naag ah oo aan danihiisa iska weynaysiin. warsame wuxuu aada ula yaabay markii loo sheegay afadii oo iska fadhiida ayuu ninkii cuntada karinaya. waxaa maskaxdiisa hantiyey siday soomaalidu ragga iyo dumarka ugu qaybiso hawsha hadalka iyo hilibka. isagu wuxuuba eedda saarayaa maariya oo ula muuqatay inaysan ahayn haweeney gaari ah. wuxuuna u soo qaatay oraha murtigeedii ahayd, ilaahow shan waad uuntaye maxaad shan uga dhigin, geesi waad uuntaye maxaad bir uga dhigin, fulay waad uuntaye maxaad baalal ugu yeedhin, deeqsi waad uuntaye maxaad maalqab uga dhigin, bakhayl waad uuntaye maxaad sumad ugu yeedhin, basarina waad uuntay ee maxaad koor uga xidhnaabay. laba xidigle dirir oo warsamo ay walaala yihiin ayaa labadooda weheliya. iyadoo sheekadu isugu dubadhacsan tahay ayaa dalaaliin iyo dad kaloo isdaba yaacaya makhaayadii soo galeen. markaasay ismaqli waayeen, sheekadiina ka joogsatay. markii buuqii yaraaday ayaa warsame dib ugu noqday sheekadii hore u socotay, isagoo weli u heelan inuu warsamo uga warramo maariya oo ah gabadhii caddaanka ahayd ee wiilkiisa u dhaxday. markaas buu yidhi, warsamow, arrinta iigu daran ee gabadhu iga yaabisay waxay tahay, mar kastoo aan ka sheekaysano murtida soomaaliyeed, intay hadalka iska soo gasho ayay iyaduna soo daliishataa gabayo iyo heeso afgaalaad ah oo uu leeyahay nin ay magaciisa ku sheegaysay shakespeare. markuu warsame intaa maqlay ayuu inta qosol la rabtay yidhi, waa sugow, ninka ay gabadhu sheegtay ma waxay barbar dhigaysaa laashimiintii soomaaliyeed ee ay ka midka ahaayeen raago ugaas, cali dhuux aadan, sayid maxamed, sheekh axmed gebyow, faarax suuriye, saraan carabey, tima cadde, cali xuseen xilsi, aybakar rooble indhayare, geedi garabey, faarax seefey, qamaan bulxan iyo boqolaal kale oo ka wada daran. warsame oo hadalkii weli sii wata, caro daraaddeedna shigshigaya ayaa intaa raaciyey, waa sugow, sideedaba aan ku warrame, dadkoo dhammi waxay soomaalida u quuri la'yihiin kartida iyo maskaxda ilaahay siiyey ee cid ku gaarta aan la helayn. horaase loo yidhi, dhulwaa tuuriyo lala gaari waa, cayna wax lagaga qaadi waa. hadalkaa warsame ku raagay wuxuu waasuga ku xusuustay gabaygii saraan carabey ee ku saabsanaa inayan jirin wax ka xumaan badan qof aan libintaada kuu qirin. waa gabaygii ahaa, dumarkuba xublada foosha waa xanaf wareeraaye balse inay xusuus leeran yihiin, xaylka kale mooge waxba yaanu xeerkay imarin, xoolana isiine xaashe ee nin libin kaa xisdiyey, xumihi waa yaabe. mahmaahduna waa tii ahayd, allana la kala baryi og, erayna la kala oran. laba xidigle dirir ayaa hadalkii qaatay isagoo isleh bildunida kale la socodsii odayaasha keligood isu camiraaya. wuxuuna yidhi, waa sugo iyo warsamow, qolo kastaa waxay leedahay dhaqan ay ku faanto laguna yaqaan. ummadaha qaarkood waxayba leeyihiin afaf aad u da'weynoo suugaantoodu dunida ku faaftay, aadna loo jecel yahay. haddaba anigoo aaminsan inay soomaalidu ka mid tahay ummadaha afafka hodanka a leh, haddana waxaa loo baahan yahay inaad aqoonsataan suugaanta iyo dhaqamada dadka kale. hadalkaa dirir yidhi odayaashu uma qaadan aqoon kororsi ee wuxuu ku dhaliyey yaab ay la aamusaan. dirirna wejiyadooda ayuu ka gartay fikradda ay warkiisa ka qabaan. markaas bay ka taagan tahay, maxaa hadalkaba kaa keenay? warsame ayaa markaa inta madaxa kor u qaaday cod jilicsan ku yidhi, diriirow,
hadalkaagu ma xumo oo waxaa hore loo yidhi qof waliba aqoontiisa ayuu hadlaa. waa suge inkasta uu hadalkiisa ka xumaa haddana dirir uma jawaabin, maxaa yeelay warsamo ayuu ku xushmaynayay, labadoodana aqoon hore kama dhexayn. markaasuu door biday in sheekadii maariya ku saabsanayd uu halkeedii ka sii wado. suu wuxuu yidhi, warsamow, weli ma kuu sheegay in maariya maalin dhoweyd anigoon iska jirin ay weysada iga jebisay? waa suga waa iska oday culimo la jir ah, wuuna ka warhayaa gabadha wiilkiisu qabaa inaysan weyse ka jebin. wuxuuse aaminsan yahay arrinta maariya inay sidaa ka duwan tahay. dirir oo raba inuu duqa shakiga ka saaro ayaa markaas yidhi, waa sugow, waxay ila tahay inaan maariya weyse kaa jebin karin, maxaa yeelay mar hadday diinteennu qabto iyada iyo wiilkaagu inay isguursan karaan, waxaa kuu cad inaysan weyse kaa jebin. waa suge ayaa si ku soo booda ah hadalkii u qaatay oo tanaaga ku yidhi, dirirow, ma waxaad ileedahay maariya iyo gabarh Soomaaliyeed yaa ayaa haddii ilaah kuu roon yahay inkastoo wiilkaygu qabo haddana soo halaad garatay maaha. intii uu gacmaha marba kor u taagayey ayay waa suge ushii ka dhacday. markuu inta rogmaday soo qaada isleeyahay ayuu dhinaciisa ku arkay nin haybad culimo ka muuqato oo hareed guduudan leh. cimaamad ayaa madaxa ugu duuban, gacantana wuxuu ku sitaa bakoorad iyo tusbax gaaban. waa suge wuxuu is yidhi, alaylehay hadda ayaad masaladii sheekh u heshay. wuxuuna ku tashaday inuu wax ka weydiiyo xaajaday dirir ku murmayeen. haddaba maxaa dhacay? ninkii waa suge sheekha u haystay ayaa inta yaro kululaaday cimaamadii madaxa ugu duubnayd iska tuuray oo dibadda soo dhigay esajeega xiira. intaa kuma ekaysana xabad sigaar ahna wuu shitay. waa suge waxaas oo dhan wuu arkayaa. markaas buu niyadda iska yidhi, reer magaalku sheekh lamood badana. taasina waxay xusuusisay ninkii hore ee yidhi, haddaad magaalo tagto waxaad ku arkaysaa caalin faasuq ah, caami duub leh, carmaltiba gaaban iyo carruur shaash leh. iyadoo sheekadii jahalaadahay ayuu dirir inta saacadda fiirshay warsamo hoos ula hadlay. isaguna markiisa waa suge u sheegay in dirir qur-aan la saarayo. waa suge waxaa lagu marti qaaday inuu qur-aan akhriska ka qayb galo, si wanaagsan ay odayaashu maalintaa u sheekaystaan. maxaa yeelay waxaa lagu mahmaahaa, war sal baa looga dhargaa, biyana sacab, salaanna suxul. halkaas ayay iska raaceen labadii oday iyo dirir. waxaana la socday wiil yar oo u waday 2 neef oo ari ah oo ay suuqa ka soo iibsadeen. wiilkii yaraa wuxuu rigihii marsiiyey waddada Maxamuud Xarbi, maxaa yeelay ma aqoon jidka loo maro degmada Howlwadaag, shaqada xariglanimada oo ku cusbayd daraaddeed. inta wiilku khaladkaas ku kacayo, dirir iyo warsame waxay ku howlan yihiin waa suge oo xarig lugta u galay, dabadeedna kufay isagoo ka tallaabsanaya suuqa ilinkiisa. goor dambe ayaa arrintii la ogaaday. markaasuu dirir wiilkii ka daba orday, odayaashiina ku yidhi hayga harina. waa suge dhibaato sidaasii ma gaarin, cagihiisa ayuuna halkii uga dhaqaaqay. wuxuu dirir saanta boobaba isagoo odayaashana u cagdhigaya. wuxuu wiilkii uga daba tegay isbeddelka baabuurta oo ku ag yaal tiyaatarka ummadda. nasiib darro, iyagoo aan iska daba iman ayaa tagsiile 2 riyood mid dhabarka jabshay. wiilkii yaraana inta tugsiiyey garab wax ka gaarsiiyey. waa suge iyo warsame markuu tagsiiluhu dhibta geystay ayay inta meel fog ka arkeen saamboob dhiila ku jirto muddo gaaban ku soo gaadheen meeshii shilku ka dhacay. ardadii dugsiyada, fanaaniintii tiyaatarka iyo dadweynihii sidadka marayay intuba waxay ku soo urureen goobtii shilka. waa suge iyo warsame markay arkeen dadkii faraha badnaa oo dirir ku hareeraysan ayuu mid waliba inta marada xaytay ushiina la baxay dagaal u diyaar garoobay. dabadeed iyadoo la isku ildaran yahay ayaa waxaa soo yeeray wiiskii booliska waddooyinka. markaasaa dadkii dib u wada gurtay, xaajadiina raggii iska lahaa la wareegay. tagsiilihii ayay markiiba ku amreen wiilka iyo rida dhaawaca ah inuu baabuurka ku qaado. waxaana laysu raacay
xafiiska booliska waddooyinka iyo xamar barigeeda. intaan goobta laga dhaqaaqin ayuu diray odayaashii ku yidhi aqalkii sii taga oo sii geeya rida aan dhaawaca ahayn. odayaashiise hadalkaa ma aqbalin. sababta ay ku diideenna waxaa ka maahmaahay waa suge oo yidhi diriirow wixii la isla sheegto ama la isku sheegtaa waxay u baahan yihiin 5 waxyaalood: nin sheegta, nin lagu sheegto, shahaado marag fura, sheekh xugmiye iyo sharkamatiire fuliye. warsame ayaa isaguna markiisa hadalkii qaatay oo yidhi diriirow soo meesha la tegaayo rakuma doodaayo, sow xis iyo sharci miduun xaajadu ku dhammaan mayso, sow madax ama mooro miduun qaadan mayno. mase kula tahay meel intaas oo waxyaalood ay ka dhacayaan in looga maarmi karo waa suge iyo warsame. sowsama aad maqalgabaydii sayid maxamed ee ahaa shir awguugay waayeel abyamay tale ashaadowday irda jiqa albaaba isku xiran ee la bixin waayey, xaajada afraha duubatay ee loo olmami waayey, nin aqoon leh aw iyo haddii odaya loo geeyo inkastoo ayaan amarka loo guuro ninkii maalintaa ka arrinshaa caaqil sow ma aha. odayaashii waa u taag waayey, halkaas ayayna iska raaceen. nasiib darro markii xafiiskii la tegey labadii oday albaabka ayaa lagu celiyey, iyaguna si weyn ayay arrintaa uga xumaadeen, iyagoo u qaatay sharaf darro loola qasday oo aan murankooda ahayn. dirir iyo tagsiirihii dood dheer ayaa dhex martay, laakiin dirir ayaa markii dambe si odaynimo ku dheehan tahay xaajadii uga taliyey, isagoo yidhi markii horeba waxaan ridaan u soo iibsaday inaan ku ducaysto ee dhaqaal uguma talagelin. sidaa awgeed waa ku quusan karaa dantii aan ka lahaa mar haddiiba ay nooshahay. wuxuu intaa raaciyey inuusan tagsiiraha waxba u haysan, markaas ayayna xaajadii fududaatay. booliskii ayaa iyaguna dhankooda xaajadii ka fuliyey oo wiilkii yaraa takhtar u diray si dhibka gaaray loo soo qiimeeyo, isla markaasna tagsiirihii ka qaaday xaashiyihii baabuur wadidda inta wax la kala hubsanayo. sidaas ayayna xaajadii shilku ku dhammaatay. inta waxaasi dhacayeen odayaashii dibadda ayay iska fadhiyeen iyagoo carab bistood la ah, laakiin waxay haddana sugayeen in maslax ama marag mid uun loogu yeeri doono. warsame wuxuu niyadda iska leeyahay dirir ayaa raalli ka ah in dibadda laydinku celiyo, ee hadduu booliska amar siin lahaa tanuuba idinma qabsateen. waa sugasa waxay la tahay in asaga iyo warsame meel looga dhacay, xoogna loogu diiday xaaje ay leeyihiin wax ka qabashadeeda, taasoo ah xaqiraad aan loo dulqaadan karin. arrintaasna wuxuu waasuga maalintaa ku xusuustay gabaygii sinaan loo bixiyey ee saahid qamaantirin jiray ahaana rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oy tolnima meerta noo tahay aan weliba kaga mayd caddahay miirsa diidaniye masalaha ninkaan ii dhigayn midig ma saaraayo, ninkii aniga iga maarmi kara uma muraadiyo. dirir ayaa xafiiskii ka soo baxay, kadibna odayaashii uga warramay siday xaajadii ku dhammaatay, waxna uga sheegay nidaamka xafiisyada iyo xeerka booliska waddooyinka. ha yeeshee waa suge iyo warsame kama dawoobin waxyaalihii lagula kacay, inkastoo ay hadalkii si wanaagsan u garteen. dirir iyo labadii oday halkaas bay iska raaceen iyagoo riyihii tagsi ku sida, waxayna gurigii tageen iyagoo aad loo raagsaday. waa suge iyo warsame waxaa la geeyey qolkii marti sharafta oo meel cag la dhigo aan lahayn. waxaa gubasha buuxiyey maqaawiir reer magaal u badan oo nin walba leh. labada oday markay soo dhex marayeen dumarkii cunto kariska ku howlanaa ayuu waasuga inta isha la raacay niyadda iska yidhi waa dumar xalay oo dhan masaga tumaayey oo ku heesaayey oo lahaa makorow dhagax waaye, makacow dhulka waaye, makaraan xibsi waaye, mudulow aqal waaye, maka naagaha waaye. meerta waa ha la maaro, mooy waxaa la yidhaa isha meesha madow, mooye geel la jaroo muuna loo qoray waaye, maqaarkii la aslaa masalaa la yidhaa, naagti maamul taqaan maakhiidaa la yidhaa, muslimkii la wacoo minankaaga yimaad martiyaa la yidhaa, waa la meel mariyaa midigtaa la qabtaa, wixii ay mar damcaan marxabaa la yidhaa. intii cuntada la sugaayey waxaa raggii dhex bartay sheeke qaayele. dooduna waxay ka furantay
warsame oo raggii uga faalooday wixii kala qabsaday ayaga iyo tagsiilihii. odayaashii reer magaalka ahaa midkood ayaana su'aal dulin ku jiro waasuge iyo warsame weydiiyey oo ku yidhi, haddaad rixun daraaddeed dhibaatadaa u marteen maxaad waasuge iyo warsamow ka yeeli lahaydeen hadday qaalin geela ahaan lahayd? warsame ayaa inta si yastanu ku jirto u qoslay oo isaga iyo warsame isdhugteen yidhi, ma waxaadan maqal ninkii iyadoo hal geela laga sugaayo guddigii rida u keenay? sababta markii la weydiiyena yidhi, ridu laba ragga ayay la wadaagtaayo waa haadka iyo hareedka, laba haweenka ayay la wadaagtaa oo waa labada naas, laba geela ayay la wadaagtaa oo waa qatinka iyo qarsaamaysiga, laba lo'da ayay la wadaagtaayo waa geesaha iyo guduudka, laba fardaha ayay la wadaagtaa oo waa gurdanka iyo gooha, midna way dheer tahayo iyadoo aan laba jir gaadhin ayay laba jir dad kaashibisaa. odaygii reer magaalka ahaa oo laftiisu isku wada inuu wax weyn ka yaqaan dhaqanka Soomaaliyeed ayaa hadalkii inta mar kale qaatay yidhi, warsamow, haddaad riyaha ku tilmaantay kuwa xoolaha ugu qiimaha badan, waxaa noo caddaatay inaadan geel lahayn. sidaa daraaddeed way kuu furan tahay inaad riyaha ammaanato mar haddaadan qiimaha geela aqoon u lahayn. isagoo weli sii wata ayuu hadalkiisii su'aal u dambaysiiyey oo yidhi, warsamow, waxaa iga su'aala marka aad sidaas u hadlayso, ma waxaadan maqal gabaygii ammaanta geela ku saabsanaa ee Cumar Isteeliya, gabaygii ay ku jirtay ajal dhimatay oo laba qabiil eedii kala gaadhay, akhyaar iyo cuqaal iyo haddii odayo loo sooco, wax aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto 100 awrku dheer yahay, haddii ooda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaaye adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysa.